Soomaaliya alla ayaa ku manaystay ciidamada ugu geesisan dunida balse waxa ay waayeen hiilkii ay kaga baahnayeen dawladooda iyo shacabkooda wana midda keentay in dunida ay dhabarka ay ka jabiso qarannimadii Soomaaliya ku biirista dhalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa aad u korodhay 5 sano ee ugu dambeysay wana midda keentay in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan in xasilinta dalka iyo dadka ay fura u tahay dhisida cududii xoogga dalka Soomaaliyeed balse kuwa lagu tilmaamo beesha caalamka ayaa dhabar jab habeen iyo maalin ku haya in Soomaaliya aysan yeelan ciidan majaraha u qabta xasiloonida dalka iyo dadka Soomaaliyeed balse isweydii qaraxyada aan wali Soomaaliya hore loogu arag ee lagu gumaadayo shacabka aan waxba galabsan yaa sababteedii leh ma shabaab mise shisheeye ama waa qandaraas lagu soo qaatay in caasimadda aysan degin si dunida loogu cadeeyo in Soomaaliya wali xaalkeeda uusan degnayn ama waxa socota maska waxa laga dilaa madaxa ileen Muqdisho waa madaxii Soomaaliya markaad isweydiiso su'aalahaas iyo kuwa kale aad u fara badan jawaabta si fudud ayaad ku helaysaa kuna darso dalkana waxa jooga ciidamo shisheeye oo qaata 3 jibaar in ka badan lacagaha ay qaataan ciidanka Soomaalida ciidamada Soomaalida waa kuwa dhiiran geesiyaala dal jecel ku sifoobay iyagoo lacag yar qaata ayaa haddana waxa ay ku dhimanayaan dagaalada waxaana dayacan qoysaskooda miyaysan ahayn ciidanka Soomaaliyeed kuwa ugu dulqaadka badan dunida marka la barbar dhigo kuwa dalalka adduunka bal eeg waa askari tababar dhamaystay wuxuuna dareenkiisa ku cabirayaa sida ay uga go'an tahay difaaca dalka diinta iyo calankiisa libaaxna ee codkaygu codkii ciidankeena weeye calaamadu gaar weeye caynka ula soo muwaadin dhaqanka iyo caadadeena diinteena ninkaan cisaynin ninkiina ciido hooyo awaala ninkaan ilaalin waxaan marinaa agteena wuxuu la kulmaa ciqaab xun halkaan casarkii istaagno waleeciyowga ka fiiga curiya nacabka boqola cawaaqib xumaanta gaadha iluu ku jabaa gumayste dagaalku hadduu uslaado hadday talaacayn wareegto ama ay akirnaato xaajo cadowga naga soo horjeeda waxaan saarnay cadaadis atawga ka bixiyo taaha walaa caalamka la yaaba cidida inta lagu qiyaaso ama beerbad caaradeeda cidii xadka soo talowda hubkayga intaan cabaysto intaan u isku darakuubo anaa ku cabira gantaallo abaadkoodana dhageysta dadkaygana kii canaanta islaamaatada cabiidso xumee shicibkoo cadaadi colaad baa naga dhaxaysa midkii cadowee shisheeye iseeyee dabaruuleeya midkuu caqligiisu liito sidii cayayaan daciifa anaa cidhib tiranin liidka ciiddiisa ninkii jeclaada rabbaa ceesh uga sameeya ninkii caasiya dadkiisa ninkaan carrigiisa dhowran wallee nabad kuma caweeyo hashiisa cudoon ma maalo hurdana caafimaad ma seexdo wallee cimrigii ma raago dal walba oo dunida ku yaal waa laga caawinayaa tababaridda ciidamada Soomaaliyana maanta in laga caawiyo dhib kuma jirto balse waa in la daryeelaa ciidanka tababarka dhamaystay loona helaa mushaaraadkooda iyo waliba daryeel ay ku dhiiradaan in difaaca dalka iyo dadka ay majaraha ay u qabtaan askarigan waxa uu la hadlayaa oo baaqna u diraya dhalinta tahriibaysa waxa uuna ugu baaqayaa in dalkooda difaaciisa ay u dhintaan intii ay ku dhiman lahaayeen dhul shisheeye dhalintii safkayga ee dalka laga sugaayo calankeenni suubane sumadii aastaantii sumcaddeenna guud iyo sawriceenna gaarka sinjigaan wadaagniyo soomaalinimadii salkaadoo u dhigi kara u horseedi kara nabad dhaqaalana samayn kara maxaad uga sadcaasheen qaaraan saaka dhaamiya waddan aniga ila siman sawd maxaad ka doonteen suudaan ka qabataan siiriyana ku joogtaan Soomaaliya ku diideen salfudeedku waa maxay sunta yaa walaaqoo siidhiga idiin tumay sooyaalka dib u raac 60 sano horteediyo gumaystiina saaraa kuwii naga sifeeyee gobonnimada soo helay soo daadeenna ma ahayn soo su'aal ma ahayn
kulli waa dhimanaysaa ciise u dhimaanaya dhalinyarada Soomaaliyeed askarta Soomaalida waxa astaan u ah dhawaaqooda iyo waliba guuxooda waxayna niyad jab ay ku ridaan cadowga iyo waliba kuwa aan rabin in Soomaaliya ay hagaagto isla markaana 24 saac ayagoo Soomaaliya propaganda been iyo been abuur shacabka Soomaaliyeed u gudbinaya shacabka Soomaaliyeed waa inay u tashtaan oo ay meel saaraan bixinta mushaaraadka ciidamadooda dawladuna waa in ay arrimahaasi ay fududeysaa isla markaan ay ku dhiirataa samaynta akoonada gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyeed Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul